Assalaamu calaykum. Waxaan hore uga soo hadalnay sirta tirooyinka ee saamaynta sixirka. Haddase waxaan ka hadli doonaa dhowr tirooyin iyo tiro walba sirta ku dhex daahsoon ama micnaha aynan ogeyn ee lagu dhex qariyay loona adeegsado. Tirada barnaamijkeena maanta aynu ku bilaabi doono waxa weeye nambarka ama tirada nambar 3. Tirada 3 ayaa ah tiro aad muhiim ugu ah dhaqanka cawaanta iyo saameyntooda sixirkaba. Sidaas darteed, tiradan waxaan ka dhex arki kartaa meelo aad u badan oo aan loogu adeegsan si caadi ah ama tiro iska caadi ah, laakiin loogu adeegsaday tiro xiriirin iyo sixir ah. Tusaale, Greek-gii hore waxay aaminsanaayeen in tirada 3 ah ay tahay tirada ugu horeysan ee run ah, maadaama ay tahay tirada 3 xagalka. Runtii, tirada 3 haddaad u sii fiirsatid waxay kula galaysaa meelo halis ah sida shalay, maanta iyo berri, waa tagto, joogto iyo timaadaba oo ah waqtiga aynu isticmaalno oo idil halka uu ka soo koobmo. Ama tusaale kale, dhalasho, nolol iyo dhimasho. Yacni nolosheenna waxaa ku hareeraysan wax badan oo haddaan u fiirsanno 3 ley ah, laakiin taasi kama dhigna 3 ley kasta in uu sixir ku jiro. Waxaa jira kuwa waa tirooyin kooban oo si gaar ah ay dad xun iyo shayaadiintu ay adeegsan ugu xireen si ay u fasahaadiyaan dadka iyo dhulka. Sidaa daraaddeed, waxay tiro barakaysan u noqotay diime iyo dhaqamo ku dhisan jahli oo hore u jiri jiray iyo kuwa hadda jiraba. Waxaa jiray fiyoore ama ubax loogu magac daray iris oo leh 3 laan ama 3 laan qaybood oo kala baxsan, wuxuuna calaamad u ahaa awoodda. Waa sida ay aaminsan yihiin masaaridii hore, iyagoo 3 qaybood ee ubaxaasi loo aqoonsanaa in ay matalaan iimaanka, xikmadda iyo dhiiranaanta. Tirada 3 diinta Kirishtaanka waxaa muhiim u ah oo tusaale aan u soo qaadan karnaa. Waxay aaminsan yihiin in tirada 3 quduuska ah oo kala ah Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxda Quduuska. Waxay aaminsan yihiin in Nabi Ciise calayhi salaam ku qaatay 3 sano in uu faafiyo Injiilka. Waxay aaminsan yihiin sidoo kale in Nabi Ciise calayhi salaam uu geerida ka soo kacay maalintii 3aad. Waxay aaminsan yihiin sidoo kale marka loo fiiriyo buuggooda Yooxana in Nabi Ciise calayhi salaam uu yiri, anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha. Waa 3 qofna Aabbaha uma yimaado dhankayga inuu soo maro mooye. Sidoo kale waxay aaminsan yihiin in Bool ama Wasoole, xagga dambe ayaynu ku arki doonaaye, markii uu maqlay codka cirka uga yimid, arkayna nuurka cirka uga ifay, in uu 3 maalmood waxba arkin, sidoo kalena 3 maalin wax cunin waxna cabin. Waxay aaminsan yihiin waa Kirishtanka marka loo fiiriyo buuggooda Korintos in Bool uu rafaad maray 3 goor ama 3 mar ula lagu garaacay, halka ay 3 goor kalena ay dooni la qallibantay. Inta badan Baybalka marka uu ka hadlayo malaa'ig, tiradoodu waa ay caddahay oo waxa uu tilmaamay inay ahaayeen 3. Waxay aaminsan yihiin in qoomkii Nabi Luud calayhi salaam ee la halaagay ay ka badbaadeen 3 qof oo keliya, waa Luud iyo 2diisii gabdhood. Waxay qabaan in Nabi Yuunus calayhi salaam uu ku jiray caloosha xuudka 3 maalin iyo 3 habeen. Waa beentooda. Waxaa Genesis ku qoran sidoo kale in Nabi Yuusuf calayhi salaam 3 maalin xabsiga ku xiray walaalihiis. Sidoo kale waxay aaminsan yihiin in Nabi Ciise calayhi salaam uu soomay 40 maalin. Intii lagu jiray 40kaas maalinna uu shaydaanku isku dayay 3 jeer in uu ka leexiyo jidka toosan. Waxay aaminsan yihiin in Nabi Ciise calayhi salaam uu 3 qofood dib u soo nooleeyay. Dhawaanahan waxaan maqalkeeda aad noogu batay ama aynu aad ugu maqalnay waxa loogu magac daray diimaha Ibraahimiyada oo kala ah 3 diin, waa Islaamka, Kirishtanka iyo Yuhuudda. Tan ayaa u muuqata isku day la rabo in lagu mideeyo diimaha aan midoobi karin, maadaama 2 diin ee Yuhuudda iyo Kiristanku, haddaynu Muslimiin nahay, aan ka aaminsannahay in ayna ku dhaqmin ama ayna raacin kutubtii samaawiga ahayd ee Towraad iyo Injiilba. Kaliya waxay adeegsadeen magacyada Quraankana ay diidan yihiin inay rumeeyaan. Sidoo kale, Nabi Ibraahim calayhi salaam waxa uu ahaa xaniif Muslim ah, halka Yuhuudda iyo Kirishtanku ay ka yihiin kaafiriin. Waxaana aad u kala duwan sida aan u kala aragno Nabi Ibraahim calayhi salaam qofku ahaa. Annaga waxaan ixtiraamnaa nebiyada oo idil, kuwa aan naqaano magacyadooda iyo kuwa aynaan garanaynba dhammaantood. Laakiin Yuhuuddu waxay ahaayeen kuwa dila nebiyada, beeniya, kagana been sheega buugaagtooda, halka Kirishtaanku ay caabudeen 3 ilaah
oo uu ka mid yahay almasiixu ciise ibnu maryam calayhi salaam, iyagoo aaminsan in uu dembigooda ka dulqaado oo uu u dhintay daraaddood, kuna tilmaameen in uu yahay wiilka Ilaahay. Marka ujeedada kaliya laga leeyahay diimo aan shaqo isku lahayn in la xiriiriyo, dhaqaalo badanna lagu bixiyo, waa in ay abuurto tirada ama nambarka 3 oo dhibkeedu uu badan yahay. Waxay madax martay ayagoo og ama ayagoo moogba madax iyo culamo muslimiin ah oo aqbalay in Nebi Ibraahim calayhi salaam waxuuna shaqo ku lahayn ku soo daraan. Nebi Ibraahim calayhi salaam mushrik ma ahayn, mushrikiina kuma xiriirin karno. Kaliya intaa ma ahan inta aad ka dhexeli kartid diinta masiixiyada iyo meelo kale oo dadka loo hoos geliyo tirada 3, waxaad fahmaysaa in si ula kac ah looga dhex diyaariyey buugaagta gudahooda tirada oo caadi u muuqata iyo mid lagu dhex qariyeyba ereyo ahaan. Tirada 3 raadkeeda waxaad ka dhaxli kartaa dhaqamo kale oo ay ku jiraan 3 ley badan. Sida dhaqanka Hinduuga waxaa ku jira aaminaad ah 3 ilaah oo noqda hal ilaah oo Brahman ah. Dhaqanka Jabaanka ayaa waxaa ku dhex arki kartaa 3 daanyeer oo kala ah Kikazaru, Mizaru iyo Iwazaru, oo u kala dhigma xumaan ha maqlin, xumaan ha ku hadlin, xumaanna ha arkin. Bilada loo yaqaano bilada nabadda waa Nobel Peace Prize. Qaybteeda dambe waxaa ku sawiran 3 nin oo qaawan oo gacmaha haysta, waxaana ku dhex qarsoon haddaad u fiirsato sawirkooda 3 xagalo badan. Mark waa maktabad al-khidamaate waxaa asaasay nin lagu magacaabo Cabdullaahi Cazaam. Hay'adan howlaheeda ayaa noqday barbilowga banaysiga qulqulka dhiigga ugu badan ee ummad aanan dembi lahayn laga daadiyo. Kadib dagaalkii koowaad iyo kii labaad, labadooda marka la isku geeyo tiro ahaan waa koowaad iyo labaad, waxay soo baxaysaa nambar 3, iyo kuwii ka dhacay bariga Asia iyo deegaano kale oo kala duwan intii lagu jiray waxaa loogu yeedhay dagaalkii qaboobaa. Asaasaha hay'adan ayaa xafiisyo ku lahaa 33 magaalo oo ku yaala waddanka Mareykanka. Tirada 33 haddaad u fiirsato waa maasuuniyadda nambarka ugu sarreeya. Waxaa la sheegay in lagu dilay 3 miino oo dhulka loogu aasay. Qaraxaas ayaa ku dhintay 3 qof, waa Cazaam iyo labadiisa wiile, iyagoo u socda masaajidka si ay ugu soo tukadaan salaadii maqrib. Cidda dishay ilaa hadda lama helin, laakiin waxaa lagu tuhunsan yahay 3layaasha. Ninkani taariikhdiisa si wanaagsan haddii aad u baartid waxaad ogaanaysaa in uu ku dhex noolaa mugdi fara badan, laakiin wuxuu u muuqday nin caqli badan, aqoon badan, dhanka diinta ah, dadaal badan. Waxa uuna isku arkayay qofka kaliya ee ka go'aan gaari kara masiirka ummad tiro badan iyo mustaqbalkooda nolosha. Adeegsiga fakarkiisa aan ku dhisnayn diinta Islaamka iyo sunnada Nebiga naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu noqday qoryihii iyo dabkii loo isticmaalay in lagu gubo ummad tiro badan oo aan dembi ay galin jirin, marka laga reebo in ay yihiin muslimiin iyo dad kale oo aan jirin dembi ay galaan waa gaalo dhiigooduna yahay xaaraan in lagu daadiyo dhulka, marka laga reebo in loo huray dhiigooda si loo holciyo fakarkii ku dhisnaa gubashada ee loogu deeqay ilaahyada beenta ah ee tirada 3. Waxaa kaloo jira wax badan oo lagu dhex qariyay tirada 3 oo dunida cabsi badan ku abuuray, sida hay'adda qarsoon waa sirdoonada ama kuwa muuqda ee tooska u fuliya adeegyada aasaasiga ah ay u baahan yihiin si ay u maamulaan dadka. Imse hay'adood ama shirkadood oo caan ah ayaa taqaan markaad fiirisid magacyadooda tirada 3 aad ka dhex arki kartid ama 3 xagal farahana kula jira nolosha bini'aadamka ah. Waxaad eegtaa garabka ciidamada Sacuudiga kuwa ku muuqda laakiin aadan fahmi karin. Waxaa ka mid ah Vatican City, aabaha waa London, waa wiilka, iyo Washington iyo quwadda ah. Tirada 3 markaa aad u daristid waxaad ogaanaysaa in lagu dhex qariyay sixir saameyn ballaaran ku yeeshay, halaagna u horseeday dadyow kala duwan. Mana ahan wax si kama ah isaga dhacay, laakiin waa fal ay ka dambeeyso maskax aad u horeysa, gelisayna waqti badan in ay dhumiyaan dad tiro badan una horseedaan halaag adduun iyo mid aakhiraba. Dadka badankood tirada markaan ku leeyahay waxaa lagu halaagsamaa haddii aan loo adeegsan sidii loogu talagalay. Si aan ahayn waxaan kaa siin doonaa sharaxaad kale oo badan iyo saameynta ay nagu yeelatay inaga ka muslim ahaan oo aynu fahmi weynay ama ay ka aamuseen dadkii fahmay.